Assalaamu calaykum waa Dr. Mawlid Kudur dhammaantiin bayd salaamay mar kale iyo waa microbiology-gii waxaan halka kasii wadaynaa casharadii ku saabsanaa ilma aragtayga casharkana waxaynu ku gelaynaa waxaa la yidhaahdo group A Streptococcus ama bakteeriyadaas la yidhaahdo marka haddaynu ku bilowno sidii caadada ahayd usoo abtirinteeda waynagii soo maraynay gram positive coccayga gaar ahaan catalase negative kuwaaban hadda ku jirnaa waa streptococcayga oo waynagii soo dhaafnay staphylococcus iyaga soo dhaafnay marka waa catalase negative streptococci bay tani tahay marka halkii ay ku horeen soo qaadanay ay ahaayeen alpha hemolytic hadda waxaynu gelaynaa beta hemolytic waxaanan ku horeysiiyey tan la yidhaahdo pyrogenes maadaama iyadu tahay kala qaybinta kale ee loo yaqaan waa tan imka kala qaybin baa jirta tan aynu hore usoo soconay hore ugu soo jirnay iyadoo la eegay hemolysiska kala qaybintaas waa mid kala qaybin kala jirto oo maaragtay loo qaybiyo classification kala jirta oo ah Lancefield gabar la yidhaahdo Rebecca waxay dhakhtaran oo microbiologist ahayd ba waxa ay maaragtay soo saartay nidaam kale oo lagu qaybiyo kuwa bakteeriyada marka tan waxay ka mid tahay group A-da marka labadaba waa loo qaybinayaa mar waa beta hemolytic bay tahay waa qaybintan streptococcus aynu soo wadnay loo qaybinayo alpha beta gamma marna waa group A ay ka tirsantahay taasna iyada ugu horeysiiyey marka galactiye oo iyada waynu imanayna oo iyada waa group B marka waa taas oo tan xagan ugu horeeyay marka hore teesaasan ku soo socday sidii aan ka hore u dhigay qaybintu ma ku soo wadnay marka aan ku soconay marka waa taas qaybintaas maanta waxa la yiraahdaa bakteeriyadan waa staphylococcus pyogenes oo ka dhigan bio waa bas afgariisa lagu dhaho ama malax marka waa malaxleydii weey wala saasanta Soomaali ugu macneeyay marka malaxleeyun bir oran waa timlaxda sameynaysa si kala hadaad u dhigtana bio tasraado sal ku xasuutaana bio lahjada reer bariga waa walaal bay ka dhigtay inanta walaalaad tihiin baa bio la dhahaa marka genes ku xasuuso marka waa biogen hadaad doonto waa jinka walaala lahayd biogen hadaad doonto biyada halka hadaad doonto higaadu yeelkeeda waxay maaragtay doonto noqotay waa biogen baa doonto noqon karta marka la jiifiyana banaan baa la joojiyana banaane adigu sidaad ku xasuusanayso maaragtay maskaxdaada ku gelaysa baasha sanad ku ilaabayn falowgeeda qabo marka waa taas oo halkaasina maraynay waxaan ku soconaa hadaba marka sida loo gudbiyo waa maxay dee waa sida kuwii hore soo socono kale soo marayno kale waa respiratory droplets ama qofka oo candhuuftiisu ku soo gaadho qaba marka taas waa taas dhanka kale iyadana waxa maaragtay lagu gudbinayaa oo laga helaa waa upper respiratory meesha ay baashan taalo waa upper bakteeriyadan ku badan tahay waa hawo mareenka sar marka taasina waa taas haddaynu ku soconana waa pathogenesis haddaynu galno iyo sida ay dibta ku keento virulent factorieska ay leedahay waxa ka mid ah sidii ku horaan ku bilowna waxa la yiraahdo capsulada marka hyaluronic capsule bay leedahay oo ah maaragtay ilaaliyahaas ilaalinay maxay markaa ka ilaalinaysaa waxa ay ka ilaalinaysaa bakteeriyada in la burburiyo phagocytosis ku dhaco kaas waa mid laba waa M protein ba aad ugu muhiim ah oo marka la isweydiinayo tabadan isweydiiya marka M protein-ku muxuu isaguna taraya M protein-ku wuxuu maaragtay ka celinayaa difaaca jidhka inuu qabsado antibody-ga difaaca jidhka ma soo saaraya inuu qabsado buu ka celinayaa markaas waa taas oo calaamadiyo waayo waxa jira wax la yiraahdo opsininta haddii aynu eegno oo ah sidii casharadii hore dhanka pathology ku soo sharaxay dhanka difaaca jidhka waxa weeyaan waa calaamadiyaal si
baan idhi guryaha loo dumiyo waa la calaamaday guriga la duminayo wadda marto marka bakteeriyooyinkana si maaragtay loo dilo marka hore waa in la calaamado waa haddii kale waxay isu eg dee unugyadii jidhka iyo bakteeriyada marka calaamadinta la calaamadinayo ayuu kani u diidayaa marka oo marka uu yimaado qabsashadu qabsanaya buu ka diidaa marka waa idinka arkaya oo faraaraha dhadheer uu bahal ku leeyahay marka waa sidaa okay marka obsininadana waa taas haddii aad u baahanta waxaad kasoo helaysaa dhanka pathology-gaad geli doontaa casharadaasay ku jireen okay aynu ku soconnay waxaa jira isagana la protein f ka la idhaahdo protein f ku adiguna maxaad qabanaysaa marka waxa weeyaan waa borotiinka fibronectinta qabsada kaasoo u sahla bakteeriyadu inay qabsato epitheliumka ayay u sahlaysaa inay qabsanayso marka aynu ku soconno waxaa iyaguna jira waxa la dhahdaa streptolysin o iyo s baa iyaguna jira maxay markaa kuna qabtaan waa kuwa sameeya dhiig burburinta halka ay streptolysinta oodu tahay mid kicisa difaaca jirka oo sababa in la sameeyo antibodyo la yidhaahdo maxay ASO marka waxaynu ugu imanaynaa dhanka baaritaanka baynu ugu imanaynaa oo waxaa lagu helo inay jirto baashani marka la rabo in la baaraba ASO-da waxa weeyaan anti streptolysin weeye oo marka waa kaas aynu ku soconne iyadana waxaa jirta streptokinase baa iyaduna jiraysa marka waxyaabaha gudaha ku jira way tii soo baxay waxyaabaha lasoo deynay weeyaan bacteria soo deynaysa markii hore gudaha ku haysatahay marka waxyaabaha soo deynayso marka kinase maxay sameynaysaa ACE sida meesha ay ka muuqato waxa weeyaan waxa ay wax burburinaya weeyaan waxay burburinaysaa fibrinta xinjirada ayay burburisaa markaasay u burburinaysaa waxa weeyaan plasminogenta ayay u rogaysaa plasmin mar kale sida maaragtay ay xinjirowga u samaysmo kale iyagana pathology kaga soo hadlay casharadaas markaas halkaasaad ka eegaysa sida plasminogenta loogu bedelo plasminta marka faktarada ka qayb qaata oo dhan halkaasan ku tahay waka waxa iyaduna jirta waxa la yidhaahdo marka hyaluronidase waxa la yidhaahdo hyaluronidase-tana iyadu maxaad markaata waxa ay burburin ku samaysaa waxa loo yaqaano hyaluronic acid ay ku burburinaysa kuwa marka wanodayaasha kuwa ay leeyihiin jirka isu haya waana ta keenaysa inay jirka ku fido keentana malaxda aad aragtay marka malaxdanay bakteeriyadan dhan kale waxaa loo yaqaanaa magaceeda la yidhahdo waxa weeye waa hilib cunta la dhahaa waa hilibka cunta xanuun aynu iman doonaa ay keentana waxaaba la dhahaaba xanuunka ama hilib cunka weeyadii marka iyada way gogoynaysaa meesha ay gasho wixii ay isu hayay maqaarka hadday tahay ama muruqyada hadday tahay hadday burburinayso dee maxaa hadhayba marka waa taas aan ku soconno waxaa iyaduna jirta waxa DNS baa iyaguna jira waa enzyme marka isaguna burburinta DNA-gii unugyadii markaasna burburiya marka oo kuwan aan kusoo koobnay waxa iyaguna jiraya kuwan la dhaho exotoxinska markaa jira exotoxinsku iyaguna maxaa tihiin sida dii magacooda ka muuqata waa waxa weeyaan iyaguna kuwo waxa loo yaqaana streptococcal pyrogenic exotoxins pyro haddana waxaa kasoo sheekeynay bio ay bas ahayd ama ahaday malax pyro waxaa la yidhaahdaa PYRO waxa weeyaan waa xumad weeyaan marka waa pyrogenic bay ka dhiganta waa kuwii sameynayay xumadda waayo inta badan haddaad aragteen qofka ay caabuqyadan ku dhacaan bakteeriyooyinkana keenaan qofka marka wax u horeeya arkayseen ku arki doona xagga calaamadaha marka nimanka oganay xanuunada waa xumad baa marka horeysa la arkay xumadana ayaa keenaya kuwana dhaliya weeye marka waa pyrogenic exotoxins sumihii dabadda weeye marka dabada joogay dabadda ayay
lagu kala kuwa kala soo baxayaan. waxaana sidoo kale loo yaqaanaa caseeyayaasha iyagana loo yaqaano retrogenicna weeye. retro waxa weeyaan waa casaanka. marka sidaynu arki doonno xanuunada soo socda waxa weeyaan inta badan waxay keenaan qofka oo milal ama casaan yeesho wejigiisa ama qaybaha kale ee jirka ama carabka. waxaasoo dhan waa waxyaabaha iyaguna markaa keenaya. xanuunada ay keento bakteeriyadani aad bay u badan yihiin. marka waxaynu ku bilaabaynaa kan la yidhaahdo pharyngitis ama caabuqa dalqada weeyaan. marka wuxuu ku biloomaya waa cuno xanuun buu ku bilowmaa, xumad buu qofka yeelanayaa, daal. marka dalqadu dee casaanaysa markaa imanaysa marka dalqadu casaato ay tahay dhanka fayrasku markuu keenayo. laakiin tan markuu bakteeriyadu tahay waxa weeyaan waxyaabahaas ka dul muuqda waxa loo yaqaano qanjidhada ama xoqadaha la dhaho ayay keenaysaa oo lagu arkaya waxyaabaha cadcad. marka waa idinka arkaya waa malax bay qof samaynaysaa. marka waa taas. dhanka kale haddaynu u nimaadno waxa ku xigay xanuun ku xigay waa impetigaha kala dhaho. marka isagu muxuu samaynayaa? impetiguhu isagu wuxuu soo saara afka waa inta badan lagu gartaa. dhanka afka ayaa waxa qofka kasoo baxaya maaragtay waxyaabaha aad arkaysaan oo qofka wejiga ilmaha yar wejigiisuna qabsanaya furuuruc oo kale buu noqonaya. laakiin ka waaweyn furuuruc maaragtay finanka ka waaweyn. markaas waa kaas oo isaguna waxa weeyaan waa xanuunkaas ku saabsan xanuun maqaareedkaas baashana keenayso. haddaan ku soconno dhanka la yidhaahdo scarlet. marka waxyaabahan xanuunadan dee guud maruma hadda ku wadaynaa, laakiin hore u sheegay si gaaran u geli doona xanuunada faafa markayn marayno. scarlet feverka kan la yidhaahdo haddaba ama xanuunka la yidhaahdo maxay waxaa la yidhahdaa xumada cas baa la dhahaya. marka tani waxa ay noqonaysaa xumada casi qof ilmaha waxa lagu gartaa scarlatinana waa la yidhahdaa marka ruushka scarlatina waa la yidhahdaa. okay waa cuna xanuun isaguna sidoo kale waaye tanun baa dee maxay wada keenayso xumad finan ku faafas maaragtay qaybta sare oo dhan baa jiraysa. inta waxay kasoo bilowdaa inta badan qaarkaas oo kasoo biloomaya cunaha markuu kasoo degana wuxuu ku fidayaa qaybaha kale jirka gaar ahaan meelaha aadka u daboolan kilkilooyinka kale guudaas meelahaas oo dhan baa maaragtay haddii carruurtu xafaayada waxyaabaha xidhayin oo kale meelaha inta badan aadka u daboolan markiiba kasoo yaacaan. baabacooyinka xataa iyo calaacilaha lagu arkaa dhankaas. dhanka aad waxa u muhiima oo wax markiiba la arko waxa jira carabka oo noqda dhiin iyo dhibiq baal cas oo strawberry waxa la yidhahdo weeg. marka waa kaas. sawirkan waa aragtaan saasaan ku sawiray kuley waa maaragtay waxaan dee ugu siri taabsi kaga dhig oo itus. marka romantic feverka haddaynu daba u nimaadno xumadan iyaduna romantic feverka la dhaho ama xumad romantic bay noqonaysaa soomaaliya. iyadu waxa weeyaan mid iyaduna tan dhalanayso markaa muddo ka bacdi haddii qofka maaragtay uu sheego marka hore in cunaha maaragtay xanuunayay laga helay kabacdi muddo kabacdina aan badnaynna uu wadnaha ka dareemay maaragtay xaalad kale sidoo kale curuq iyo xanuun sidoo kale ay kasoo baxeen maaragtay boogo baa lagu arkaa. boogahaas waxaa loo yaqaanaa erythema marginatum baa la dhahaa. marka waa goobooyin waxa weeyaan wareeg cas baa jira inta dhexdana waxoogaa bay cawlanta. marka waa taas. waxaa kaloo jirayo waxyaabaha lagu yaqaanaa isagana muxuu ahaday waxyaaba maaragtay kasoo baxaya jirka oo soo kuskuusan qaybaha jirka kamid gaar ahaan meelahaas laga laalaaban karo. sidoo kale waxaa calaamad kale isagu leeyahay kamid ilmaha maaragtay lagu arkan karo neerfaha weeyaane inuu ilmuhu maaragtay ku dhacaa uu maaragtay sameeyo dhaqdhaqaaqyo aan isagu maamulayn. gacanta xagaa inuu tuuro gacantu laalaabato mar madaxa hadday madaxa noqon kartaa uu laalaab xagaa u tuuray dan xagaa u tuuray waxaan isaguna maamulayn. waxaa laga yaabaa in la moodayo inuu ilmo yar yahay
ومدح iska turtuuray hadba siisa iska ciyaaray laakiin isagu maha wax maamulay calaamadahaas baa iyaguna jira si fiican baan insha allah markaar u geli doonaa marka kaasina waa kaas dhankan haddaynu nimaadno waxyaabaha kale ka midka waxyaabaha uu sii sababay waxa loo yaqaano erysipelas waxa la dhahdaa jirta oo ah maaragtay milil ku imanaya milil caabuqeed marka mililadu waa badan yihiin milil dab keenay baa jiri kara qofka markuu gubto oo kale dee way casaaday jirku marka waa intaanay dee maaragtay la gaadhin heer uu dee uu diirku qofka ka hormo maaha markaas waxaa laga wadaa dee dab maaragtay aad u dhawaatay oo kale maaragtay diiraan ba meesha noqonaysa casaan ba meesha noqonaysa idhaahdo marka waa mililka marka eri waa sida dee eri sidaa ka muuqata waa casaan balaskaasna waa diirkunba la dhahaa marka kaasi waa kaasoo dee waxay meelaha ku wareegsan meesha wax qofka kasoo gaadhaan waayo bacteriada meesha ay gasho waxay markiiba dhex raacdaa maaragtay jirka marka waa halis weyn waxa ku xigaysa marka cellulitis maxay kaga duwan yihiin marka cellulitis isaguna waxa weeyaan in yar maanta arsan ku sawiray meesha kana yar madow baan maxoogaa marka maxaan ka wadaa haweenkani waa diirka qaybta sare diirka la qaybiyo qaybta u sarreysa wey ayuu ku kooban yahay laakiin markuu cellulitis tahay maqaarka oo dhan buu gaadhay ka dhigan saasaan markaa midab waxoogaa sii madow maaragtay oo dee aad arkayso inuu dhexda sii galay gudaha u sii galay jirka ayuu sii sababaysaa baashan marka waa tanteen lahaynin waa taasin flashka waxaa la dhahaa maaragtay dee hilibkay cunaysaa ma ogti baashan marka dambe sii gelaysa marka kale waxay sii keeni kartaa waxa la yidhaahdo necrotizing fasciitis waxa la yidhaahdo oo iyaduna waxa weeyaan dee waa ilaa ay sii dhacdhacday markan waxay sii gelaysaa dee ilaa ay gaadho aaga muruqa ay gaadhaysa fasciitis waxa la dhahaa qaybta ka sarreysa waxa jiray qayb ka sarreysa muruqyada marka la gelayo waxaynu anatomiga markan galnayno ku faahfaahin doonaa iyagana weli maan gelin anatomy waan soo socdaa marka waxa weeyaan dahaadh ka sarreeya baa jiro muruqa ilaa kaasii gaadhisaa laga wadaa marka waa necrotizing waxa weeyaan necrosis waxa weeye markaynu unugyadu dhintaan pathology markaynu wadnay bilowgiisaan kusoo sharaxaysaa marka waa idinka arkaysa warkaanada waa halis haddaan qofka laga gaadhin waxaan maaragtay qaybtan kale ku soconna waxa la yidhahdo waxa weeyaan waa pyomyositis ka la dhaho haddaynu ku sii soconnana isagu waxa weeyaan muruq pyo waa mar kale waa madaxdii myo muruqiisaysan waa caabuq muruqeed wey marka madax samaynaya marka waxa weeyaan muruqi dhexdiisii hawsha ka socotaa marka qofka muruqa barariyo meesha inta ahaato barar qofka waxaa ka gaadhaan nabara ku dhaco siyaabo ay ku gaadhiba bararba muruqa ku dhacaya markaa saas weeyaan oo taas wey aynu markaa kasii soconnay waxaa jira ku la yidhahda isagana TSS walow horena aan soo sheegnay ay keenaysa staphylococcus maaragtay way keenaysay ama baashara aureus la yidhahda keenta laakiin kani waxa weeye waa strep waa mid ay keenayso waxaa la yidhahdaa maxay waa toxic shock syndrome weeyaan strepto kale marka ay keenayso waxaan kusoo koobaynaa marka xagga xanuunadana waxa kan la yidhaahdo maxay glomerulonephritis markaas isagu muxuu yahay marka dee waa caabuqa glomeruluska oo isagu degdega marka isagana mar walba marka laga sheekeynayo haddii la yidhahdo case oo kale la akhriyayo qofku wuxuu kuu sheegayaa marka hore la sheegayaa inuu qofka tusaale pharyngitis oo kale ku dhacay ama uu ka cabanayayba dee xagga cunaha kabacdi markaana ay xaalada keliyad ama calaamada keliyada la xidhiidha saasaa markaa keenaysa inaad markiiba ka shakida maxay bakteeriyadan inay keenayso markaasaa markaa la qaaday xagga baaritaanka inu gelinayay
la baaraya maaragtay teen kasoo sheekeyn hyaluronidase ayaa lagu ogaada marka inay jirto. Marka taasina waa intaas dhanka xanuunadu. Baaritaanka sidii caadada ahayd kulley inta hore waxay noqonaysa waa abtirinun intii la ogaaday inay de gram positive tahay hadii la sameynayo waxyaabahan kasoo sheekeynayna si lagu ogaadana de waa gram stainkii in lasoo sameeyo, catalase negative inay tahay in la ogaado. Marka catalase ma laha weeye tan marka catalase negative weeye. Culture-kii waa blood agarka maxay ku sameynaysaa waa hemolyte beta hemolytic mar hadday tahay laakiin waxay sameysaa betadu waa complete hemolyze waxay sameysaa ka burburin unugyada dad agarka la dhex dhigo bahashan maxay waxa ay sameysaa burburin bay ku sameysaa dhiigga marka hadda ku samowda waxayna sensitive ku tahay bacitracin. Intaas waa intaas. Serology ahaan baaritaankeeda kale waxaa meesha laga soo helayaa kor u kacaya anti streptomycin antibody-gii, anti DNase-kii, anti hyaluronidase. Intaas waa la arkaya markaas la ogaanaya inay xaajadu tahay biogenesis. Markaas waa taas waxa rheumatic oo kale maaragtay xumada rheumatic oo kale waxa markiiba inta badan caseska lagu daraa in la helay maxay ASO-ga maaragtay lagu daray. Dhanka maqaarka marka ay tahayna DNSP-ga kala dhahdo waliba anti DNase-ka baa xanuunada maqaarka muujinaya. Xanuunka glomerulonephritis-kana waxa weeyaan waa anti hyaluronidase antibody-ga kaasaa markaa isaguna dhankaas isaguna qaabilsan. Haddaynu ku soo koobno daweynta waxaa loo doortaa waxa weeyaan kuwan beta-lactamska la dhaho marka waa phenoxymethylpenicillin ayaa laga siinayaa oral ah per oral weeyaan gaar ahaan waa marka ay sahlan yihiin caabuqu sahlan yahay ama infectionku. Penicillin tana waxaa la siiyaa marka ay tahay mid daran. Markaas waa taas halkan 111 ku dare aan idin sheegaba de waxa weeyaan ku sii dareebe haddii ay maaragtay xasaasiyad leeyahay bukaanku uu ku leeyahay kuwan la yidhaahdo penicillinada ama beta-lactamska waxaa la siinayaa marka macrolideska la siinayayo gaar ahaan azithromycin ama erythromycin. Marka macrolidesku erythromycin-kaasay ku dhamaadaan saasay marka waxay yihiin. Insha Allah markaynu dhankan soo dhamayno ayaynu ku dari doonaa sidoo kale dhanka pharmacology waxaan ku dari doonaa antibioticska. Marka la socod wanaagsan dhan walba waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.